halkani waa BBC London saacadda Afrikada Bari iminka waxay tilmaamaysaa 5 galabnimo oo go'ah. kulan waxaan wanaagsan khiyartana dhageysanaysaa meel walba joogtaan waa galab khamiis 12 bisha Juulaay. Idaacadda waxaad ku maqli doontaan madaxweyne Trump oo Britain booqasho ku yimid intii uu ka soo bixin magaalada Brussels iyo shirkii sare ee gaashaanbuurta NATO. eedayn xoog leh wuxuu jeediyay madaxda xubnaha ururka. mar dambase waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay natiijadii shirka oo xubnuhu ay yeeleen buu yiri kharashka gaashaanbuurta inay kordhiyaan. The United States commitment to NATO is very strong, remains very strong, but primarily because everyone madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Etoobiyana isagoo baarlamaanka gobolka ka hadlayay waxa uu sheegay khaladaad inay dhaceen ha yeeshee gobolkuna horumar weyn uu gaaray waxaana uu ku baaqay dib in looga heshiiyo wixii hore u dhacay ha yeeshee khabiir arrimaha gobolka ka faallooda waxa uu BBC-da u sheegay waxay hadda ku suurad geli kartaa isagana raaligelin lagu siin karaa sida ugu dhaqsaha badan inuu Cabdi Maxamed kursiga uga dego isla markaana diyaariyo qorshe kala guur ah oo awoodda looga guurinayo xafiiskiisa. isla gudaha Etoobiyana colaad cusub ayaa ka dhex qaraxday Soomaalida iyo Oromada oo la sheegayo dagaalku inuu dhulka ku sii faafayo. waxaad kaloo maqli doontaan Mareykanka oo safiir cusub u soo magacaabay Soomaaliya. waa nin xoogaala gobolka yaqaana Soomaaliya iyo gobolkan hadda aad u fahamsan weeye inkastoo siyaasadda Ameerika uu shaqeynayo siyaasadda Mareykanka iyo dawladdiisa uu matalayo. Britain waxay shaacisay qorshihii muddada dheer laga sugayay ka bixitaankeeda midowga Yurub. dalka Kenya waxaa laga cawday ilaa 20 siyaasi sababta dawladdu ay kharashkooda u bixinayso oo ay Russia u aadeensi ay koobka adduunka kubadda cagta u fiirsadaan iyo warar kale oo gobolka iyo caalamka ku saabsan. halkani waa London. aadan saalimiin ayaa barnaamijka soo diyaariyay waxaanse ku bilaabaynaa wararka caalamka waxaa noo haya wariyahayaga Axmed Mursal. mahadsanid Cabdinuur. madaxweyne Trump ayaa gaaray UK halkaas oo uga bilaabatay booqasho shaqo oo 3 maalmood ah. diyaaraddiisa Air Force One ayaa ka degtay garoonka Stansted ee ku yaala duleedka London halkaas oo uu ka raacay helikobtar u qaaday halka uu ka degan yahay safiirka Mareykanka ee bartamaha London. inta uu socdaalkiisa ku jiro waxa uu la kulmi doonaa boqoradda Elizabeth iyo ra'iisul wasaaraha UK Theresa May. Mr. Trump ayaa waxba kama jiraan uu ka soo qaaday mudaharaadyo qorsheysan oo isaga ka dhan ah waxaana ku jira mid uu ka dhex muuqdo bambale ilmo ah oo astaantiisa loo ekaysiiyey. wuxuuna yidhi waa sida hadalka uu dhigay aad ayay reer UK jecel yihiin. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in uu haatan ku faraxsan yahay isbahaysiga NATO iyo ballanqaadka ay sameeyeen ee ah 33 bilyan ee kharashka dheeriga ah ee loo qoondeeyay kharashaadka militariga. shir jaraa'id oo ka dhacay Brussels ayuu ku sheegay in isbahaysiga NATO uu aad ugu xoogan yahay 2 maalmood ka hor markii uu bilowday shir madaxeedka isbahaysiga NATO. wuxuu goorsii horeysay ku eedeeyay dalalka Jarmalka, Spain iyo Belgium in ay ka gaabiyeen bartilmaameedka isbahaysiga ee ah 2% ka mid ah dakhligooda in ay bixiyaan oo ay ku bixiyaan dhanka difaaca. dowladda Suuriya ayaa dib u qabsatay deegaano ay fallaagada gacanta ku haysay oo koonfurta magaalada Darca halkaas oo ah goobtii uu 7 sano ka hor ka bilowday kacaankii looga soo horjeeday Bashar al-Assad. gawaarida dowladda oo ay weheliyaan militariga Ruushka ayaa la arkayay ayagoo sii galaya deegaankaas. madaxda isbahaysiga NATO ayaa diiradda saaraya khilaafka ka taagan dalka Afghanistan. madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa ka mid ah madaxda ka qaybgalaysa shir madaxeedka Brussels. xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegaya in uu ku rajo weyn yahay in isbahaysigu isku raaci doono in la taakuleeyo laamaha ammaanka Afghanistan tan iyo sanadka 2024. tan iyo markii isbahaysiga NATO uu soo afjaray howlgalkiisii dagaal ee Afghanistan, Taliban ayaa gacanta ku dhigtay dhul ballaaran oo ka mid ah dalkaas. saraakiisha dalka Afghanistan ayaa ku warramaya in Taliban ay weeraro xiriir ah ku qaaday saldhigyo ay leeyihiin ciidamada dalkaas oo ku yaal gobolka waqooyi ee Kunduz. wararka qaar ayaa sheegaya in khasaaraha weerarkaasi ka dhashay uu yahay mid aad u ballaaran. waxaana la sheegayaa in hal saldhig oo kaliya lagu dilay 30 askari, 30 kalena lagu dhaawacay.
wasiirka cusub ee Britain u qaabilsan ka bixitaanka midowda Yurub Dominic Raab ayaa hoosta ka xariiqay soo jeedinta cusub ee ku aadan xiriirka uu dalkaasi la yeelan doono midowda Yurub ka bixitaanka kadib, asagoo ugu baaqay midowda Yurub in ay ka soo jawaabaan. Mr. Raab ayaa baarlamaanka Britain ka hor sheegay in xukuumadda Britain ay wadaxaajoodka u marayso qaab ku dhisan isfahan iyo saaxiibtinimo. xubno ka tirsan xisbiga hore ee talada dalka Pakistan hayay ayaa sheegay in boqolaal xubnood oo ka tirsan xisbigooda oo ay booliisku ku xirxireen magaalada Lahore iyadoo lagu wado in dabayaaqada bishan ay doorashooyin guud dalkaasi ka dhacaan. waxa ay sheegeen in xarigani uu yahay isku day looga hortagayo in ay dariiqyada ka dhacaan isku soo baxyo ballaaran oo ay taageerayaashoodu ku taageerayaan hogaamiyahooda. Ra'iisul wasaarihii hore ee Nawaz Sharif ayaa lagu wadaa in maalinta Jimcada ah uu dib ugu laabto dalka Pakistan. Mr. Sharif ayaa haatan ku sugan magaalada London. Mr. Sharif oo haatan ku sugan magaalada London ayaa maxkamadii ku xukuntay 10 sano oo xabsi ah asagoo dalka ka maqan eedeymo la xiriira musuqmaasuq. warkiina waa naga intaas Cabdinuur. mursalaad buu mahadsan yahay. halkaad nagala socotaana waa London. waa tahay marle waxaad maqli doontaan warbixin iyo waraysi ku saabsan hadallo laga soo xigtay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo dowladda Soomaaliya oo sheegtay inta sanadku aanu dhammaan liis sugan inay ka soo saari doonto tirada ciidamadeeda. aanse ku horreeyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ka soo degay dalka Britain. waxa uu la shiri doonaa boqoradda iyo ra'iisul wasaaraha dalka. waxa uu kala hadli doonaa ganacsiga iyo amniga Britain iyo sida ay uga baxayso midowga Yurub iyo arrimo bariga dhexe ku saabsan. amnigiisa aad baa loo adkeeyey. madaxweynaha safarkiisa sida la sheegayna waxaa ku heliya ilaa 1,000 qof, diyaarado helikobtara iyo baabuur fara badan. intii aanu Britain imaan waxa uu Brussels kaga qayb galay shirkiga gaashaanbuurta NATO. maalintii labaad ayay ahayd. shirku wuxuu ahaa ajandaha Afghanistan in laga hadlo. ha yeeshee madaxweyne Trump oo nus saac soo daahay shirka ayaa markii uu yimid waxa uu ku adkaystay in laga hadlo arrintii shalay ahayd kharashka waddan walba gaashaanbuurta NATO uu ka bixiyo. waxa uu yiri waa in ugu yaraan ay noqotaa markaan 2% dakhliga guud ee waddan walba soo gala. markii dambese codkiisa iyo hadalkiisa sidii hore waa uu ka bedelnaayo wariyaasha ayuu la hadlay. wararkiisa waxaa la socday Mawlid Xaaji Cabdi oo stuudiyaha ila fadhiya. Mawlid bal noo waran. madaxweyne Donald Trump waxaa la sheegay saaka intii shirka lagu jiray inuu xitaa uu ku goodiyey in uu kaligiis gooni u noqon doono, isla markaasna uu sheegay in looga baahan yahay dhammaan wadamada ka qayb galaya NATO shirka madaxdu ay ku sugan yihiin in looga baahan yahay in 2% ay ku kordhiyaan miisaaniyadooda sanadlaha ah howlgalka ku baxaya ama qarashka ku baxaya NATO. waxaa hadalkaasi loo fasirtay macnaheedu inay tahay in Mareykanka ayba dhici kartaba inuu ka baxo gaashaanbuurta NATO. laakiin intii aan u soo duulin magaalada London ayuu saxafiyiinta kula hadlay magaalada Brussels, waxaana uu sheegay in aysan hadda muuqan ayna muhiim ahayn in laga fakaro in ka bixitaanka NATO meesha uu ku jiro. hadalkaasi markaa waxaa loo fasiranayaa in madaxweynuhu uu dib uga laabtay go'aankiisii isagoo sheegay in Mareykanku uu diyaar u yahay inuu ka sii qayb ahaado NATO oo la aasaasay 1949 isla markaasna ay uga midaysan yihiin dhammaan wadamada ku midaysan in laga hortago haddii ay dhacdo in waddan ka mid ah la soo weeraro. ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa iyadu hadashay waxaana ay sheegtay in ay isla fahmeen isla markaasna la isla gartay in danta guud ee NATO ay tahay danta ay leeyihiin dhammaan wadamada madaxdooda goobtaasi ay ku shirayeen. madaxweynaha Mareykanku wuxuu dalbaday wax muddo bilooyin ah laga wada hadlayay, taasi oo ahayd in culayska la qaybsado. si cad ayaynu u sheegnay, si cad ayaana anigu u sheegay kuwa kale sidaasi ayay sameeyeen. waxaynu ku soconaa jid aynu ku gaarayno taasi, waana danta aynu leenahay, taasi oo awood inoo yeeli doonta guud ahaan. haddaba waxaa soo baxaysa wararka ku aadan in madaxweyne Donald Trump uu dalbanayo in ilaa iyo 6 sano kadib loo baahan yahay in waddan kasta uu kordhiyo arrintaasi. hadalkiisa loo fasiran karay in ay markaasi la isku raaci karo, laakiin madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa arrintaasi meesha ka saaray. waxa uu sheegay in aanay jirin waddan ama cid kordhin karta wixii lagu heshiiyey 4 sano. micnaheedu waxay tahay 2014 in lagu heshiiyey arrintaasi, isla markaasna uu sheegay inay jirto qorshe ah in 4% la kordhin doono miisaaniyadda, laakiin ilaa hadda wax cad aan la isku raacin.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump isna waa uu hadlay waxa uu yiri This was a fantastic 2 days. waxa ay ahayd 2 maalmood oo heer sare ah tani xaqiiqdii waxa ay ahayd mid wacan ugu dambeyntiina waa la isku yimid runtiina waxoogaa ayaa la kala aragti duwanaa gabagabadiina cid waliba oo shirka joogtay waxa ay xaqiiqdii jeclaadeen wixii laga wada hadlay 2 maalmood ee la soo dhaafay niyad weyn oo weyn ayaa lagala tagay qolka Liking what happened over the last 2 days. There's a great spirit leaving that room. madaxweyne Donald Trump intii uusan ka soo tagin Brussels ayay ahayd mawlid waxaan la soconaa markii dambe hogaamiyaasha NATO inay u galeen qodobkii maanta oo ahaa arrimaha Afghanistan madaxweynihii dalkaas Ashraf Ghani waa uu joogay shirka ciidamo fara badan ayaa NATO ka jooga Taliban waa isoo laba kaclayeen muddooyinkan dambe dhul fara badan bay qabsadeen maxaa laga yiri shirka qorshe ballaaran ayaa jiray oo ku aadanaa in si weyn maanta shirka lagu lafaguro arrinta Afghanistan laakiin waxa carqalad ku noqday qorshihii madaxweynaha Mareykanka uu miiska soo saaray ku aadanaa in dib loogu laabto wixii shalay laga wada hadlayay laakiin qorshuhu wuxuu ahaa in loo baahan yahay in NATO 2024 ay ilaa inta ka horeysa ay aad u taageerto militariga wadankaasi Afghanistan sida uu sheegay xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Stoltenberg waxaa jirta markaas in ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ay ballan qaaday in ay u diri doonaan 440 askari oo dheeraada si ay uga qayb qaataan howlgalka Afghanistan Mareykanku isna waxa uu 3,000 oo ciidamo ku korreeyay bishii September sanadkii la soo dhaafay ciidamadiisa ka jooga wadankaasi Afghanistan tiradaasi oo la gaarsiiyay 15,000 oo askari inta badan waxa la doonaya waxay tahay in la helo hanaan lagu taageero markaasi dawladda wadankaasi Afghanistan oo madaxweynaha shirka uu joogay laakiin Cabdinuur intii shirka loo fadhiyay waxa soo baxday in wadanka Afghanistan aad moodo in Taliban ay ku soo beegeen howlgal culus ayna soo qaadeen oo ay weerar ka fuliyeen gobolka Kunduz waxa jirta in hal saldhig oo kaliya lagu ilaa 60 askari sidoo kale gobolka Farax ayaa sana dagaalo culus ay ka dhaceen iyadoo la soo sheegay in badi dadka dhinteen ay yihiin ciidamada militariga laba arrimood ayaa dadka arrimaha siyaasadda ka faalooda arrintan u dhigayaan waxa weeye fariin loo dirayo NATO oo ah wili Taliban awood bay leedahay waa inuu dagaalamayna iyo fariin kale oo ahayd culimadii ku shireysay islaamka magaalada wadanka Saudi Arabia ku baaqay in Talibanku ay nabad qaataan intaasna ayna jiri doonaan oo Talibanku ay arrintaasi ku gacan saareen ayna diyaar u yihiin inay dagaalka sii wadaan fariintaas ayuu dagaalkani muujinaya مولد أدبض ما سنتهي هل كان نقرأ سعطانا والله أنت بصومالي BBC لندن markana madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed oo ka hadlay baarlamaanka gobolka oo fadhi uu u socday maalmahan ayaa si kulul u dhaliilay taliyihii nabad sugidda Itoobiya ee dhawaan xilka laga qaaday oo muddo dheer jagadaasi hayay waxaana uu sheegay uu ku tilmaamay inuu ahaa nin qalafsan Cabdi Maxamed waxa kale oo uu sheegay inuusan oranaynin khalad ma dhicinin iyo gafaf iyo in loo baahan yahay dalku inuu dib u heshiiyo gaar ahaan ururka ONLF oo ugu baaqay inay wadanka ku soo noqdaan oo ay nabad ugu noolaadaan haddaba nin khabiir ku arrimaha gobolka ayaan wareystay hase ahaatee mar ka sii horeysay ayaa hadaladii madaxweyne Cabdi Maxamed uu ka jeediyey oo af amxaari ahaa iyo hadalhayntooda waxaan wax ka weydiiyey wariyaha BBC-da Jigjiga Cabdinaasir Xikam oo aan marka hore weydiiyey bal wixii uu ka yiri ninkii nabad sugidda Itoobiya xukumi jiray Abdinuur Geetaaja Safa wuxuu ahaa dadka farax ku diriska ama ruuxa labaad ee ugu awood badan 27 sano ee la soo dhaafay wadanka Itoobiya ayuu ahaa wadanka markay soo dagaalamayeen TPLF-tuna wuxuu ahaa ninkii sirdoonka u qaabilsanaa TPLF marka Cabdi waxa ka muuqata hadalkiisa inayna wada shaqeynin intii uu Cabdi xilka hayay wuxuuna sheegay inuu intaas oo jeer isku dayay in qalalaasa siyaasadeed deegaanka la geliyo dawladda muunka marqaan jirin buuri xisbina muunka marqaan jirin shacabka muunka cabsan jirin hadii aad moodaysaan buu yiri waliba in hadda markuu jagada ka baneeyay General Aadan Maxamed uu ka bedelay inaan sidan xarabku u qalayo arrintu sidan ma aha xisbiyada IBRF oo dhan soo wareystay buu yiri afarta xisbi IBRF ayaa mid walba gaar ugu tagay ayuu yiri oo eri buu yiri war ninkan ma qabataan marka arrin hore oo jirtay ahayd buu yiri nin la hadli karin magaci ma jecli buu yiri nimankii aan saa ku yiri inaan magacyadooda sheego laakiin arrin aan ahayd buu nin la hadli karin ma lahayn keligii baa la hadli jiray buu ninkaas marka ninka kaliya ee wadanka Itoobiya dadkiisu ay u baahan yihiin inuu cafis weydiisto ninkaas oo ahaa buu yiri marka isagoo madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar arrinta ka hadlayeen wuxuu yiri
ከኢህአዴግ ዓላማዎቹና qaladaad waxaa jiray la sameeyey oo faragelin ah ninka madaxda u ah hay-adda sirdoonka Itoobiya Gateju Azefa wuxuu ahaa nin danaysta ah oo qiyaano kaliya ku shaqaysta inuu yahay ayaan ogahay anigu dad kale ma garanayo annagu deegaan ahaan waxa uu nagu sameeyey haddii aan ka hadalno deegaankeenna oo kaliya sida cid kasta oo EBRDF ka tirsan ay og tahay in uu wasiiradeenna oo dhan uu Addis Ababa isugu yeero ayuu madaxweyne halkaasi ka soo magacaabayay wuxuuna had iyo jeer difaacayay dad wax dilay kuwa musuqa deegaanka ka galay kulligood isaga ayay u tagayeen oo damaanad siinayay እንዲያስ ቢጠየቅም አይሰጥም በሙስና የተባረሩ በሙሉ ጌታቸው አሰፋ ጋር ነው beri dhaweed waxaa jirtay in madaxweynuhu Addis Ababa u tagay isla mar ahaantii waxaa soo baxay warar ku tiri kuteen oo lahaa madaxweynaha xilka laga qaadaya ama waa la casilaya arrintaas markii uu baarlamaanka ka hadlayay ma soo qaaday si badan ma ugu dheeraanin si toos ahana ma u sheegin laakiin dadku way garanayeen inuu carabka yar inuu agmari way garanayeen arrintani ma ahayn waqtigii ugu horeysay ee la yidhi Cabdi Maxamed Cumar waa la casile ama wuu casile ama waa laga qaadi meesha waxaan u maleynaa intuu hadda xilka hayay weliba sanadadii dambe 40 jeer ka badan baa arrintaasi soo yeedhay systemka loo maro waddanka in laga qaado madaxweynayaasha deegaanada systemka loo maro ma aha system kor looga yeedhiyo inta badan waxaa fadhiista guddi fulin baarlamaan dastuurkay ku qoran tahay arrintaas oo dhan weliba maalmahan waxay dadku sheegayeen inuu xataa uuna shaqayn karin oo soo dardaaran la yidhi markuu soo noqday arrintu markuu yimidna isla markiiba shirar buu furay xabsigii jeelka dhexe ee dowladdeegaanka Soomaalida ayuu maxaabiista ka sii daayay markii dambana baarlamanku ilaa hadda xilligan aan isla hadlaynaa baarlamankii baa fadhiya oo shaqadiisii caadi ahayd buu wataa marka wuxuu arrintaas isagoo ka hadlaya ayaa wuxuu yidhi war waxa ila wanaagsan buu yidhi intan arrintana way nagu soo noqotay inaguna afino hawsha dadkan aan wada wadna ayuu yidhi ዛሬ በኢትዮጵያነት የሚኮራ ክልል maanta deegaan Itoobiyanimada ku faanayo ayaanu samaynay annaga oo taageero ka helayna xisbiga EBRDF iyo shacabka deegaanka marka howlahaas oo dhan ayaan qabanay hase ahaatee qalad ma lihin ma oran karno oo markaad shaqaynaysid waad qaldamaysaa marka shacabkeenna cafis ayaanu weydiisanaynaa waxaanu leeyahay aan iscafinno annaga oo ka duulayna go'aanka cafiska ee ra'iisul wasaaruhu uu noo horseeday ይቅርታ እንባባል በሳቸው ትክክለኛ አካሄድ ማን ka waran iyada Owen laftana uu ka hadlay oo wuxuu markii uu ka hadlayay hal heshiye iyo dib loo heshiye iyo muxuu iyaga ku yiri waa ognahay hogaankoodu asmaray ku shireen dib ay u doorteen gudoomiyahoodii waxa la sheegay in ra'iisul wasaaraha Itoobiya xataa asmaray isku arkeen wararka aynkaasa khudbadiisii marka ee baarlamaanka ma soo hadal qaaday arrintan arrintan oonalafta uu soo hadal qaaday wuxuu yidhi si nabadan ha ku yimaadeen si nabada oo caadi ahana waddanka ha u dhex mareen buu yidhi laakiin arrintan dad badan baa calaam su-aalka muujiyey oonalaftu dowladda federaalka ayay isku dheeririyaan oo inay la hadasho iyo inay la fadhiisato iyo inay waddan weliba waddankan aan ahayn ay kula hadasho aad buu mahadsan yahay wariyaha BBC-da ee jigjiga cabdinaasir xikam haddaba Nairobi ayaan khadka telefoonka isla maanta ku wareystay Faisal Roble oo ah aqoonyahan arrimaha gobolka ka faalooda gobolka ka soo jeeda waxaan weydiiyay bal sida loo arko ama uu arko loona fasiran karo hadalka madaxweyne Cabdi Maxamed runtii waxa in la heshiiyaa way fiican tahay laakiin madaxweyne Cabdi Maxamed hadduu qortay in uu gacan ku lahaa xasuuqa ballaaran ee muddada dheer socday waxa la isku haystaa un sidii uga bixi lahaa because qof le naf baanu qaadnay saamaxu yar culus yahay in lagu tilmaamo marka madaxweyne Cabdi Maxamed uu leeyahay dadkaas waa la xasuuqay shacbiga Soomaali galbeed ee kililka ku dhaqan muddada dheer dibta weyn soo gaadhay waxbaan ka ogaa gacanna waan ku lahaa laakiin waa laygu qasbay aniga waxay ila egtahay arrintaasi nin weyn oo dembi caalami ah bini'aadamnimadana ka baxsan uu qirtay runtii isagana aan u malaynay inay dhibaato gelin doonto sababtoo ah xuquuqul insaanku ma ogolo qofku inuu qof kala dilo si kastaba ha noqotee weliba gaar ahaan in siyaasad loo dilo shacbina la xasuuqo laakiin ma sidaas uu yiri sida hadda qoran inuu leeyahay waxa ugu qasbay ninka la yiraahdo Getachew ayaa horta la sheegaya haddii ay saas tahay ninka Getachew la yiraahdo aad buu uga dayriyay ninka anigu xafiiskiisa warigay ma tagin buu yiri waa yaabay ismana aan aqoonin nin wuxuu ahaa buu yiri dadkoo dhan ka awood badan iyo waddanka iyo dawladaba cidna aan la tashan jirin
horta cabdinuurow dee gobolkan siaad ka og tahay 10 sano ee ugu dambeeyey idin mar waxaa la geliyey go-doon cuntada laga xidhay marka hadduu leeyahay geetaajow baa ka mas-uul ahaa arrinta aniguna amar baan qaadanayay arrimaha noocaasa waxaa caddayn karo iyo labadoodaba in maxkamad lasoo taago tu gobol iyo tu caalami ay arrimaha markaas sida ay iyagu rabaan uga hadlaan laakiin caqliga ma gasho adoo madaxweyne kilil ah constitutionka etoobiya ama axdi qarameedka etoobiyana xuquuqku siinayo inaad ummadaada ilaaliso in aad ku andacoon karto waa la igu amray waxaan u malaynayaa maxkamadda adduunka arrintaasi arrin dhaafaysa maaha 22 sano ee TPLF meesha baarqabka ka ahayd kililka Soomaalida oo kaliya ta dhibaatooyin kama dhicin gidi way ka dhaceen xasuuq ka dhacay Cabdi Maxamed qofka kaliya ta ma inkastoo isaga dibkiisu ay aad uga calaacalayaan arrintan Ethiopia laba si waa inay ku duweysaa kow waa inay mar wada fiirsaa meelaha dunuubtu ka dhaceen iyo dadka lagu xadgudbay ama gobolka Oromiya ha noqoto ama kuwa dhexe ha noqoto ama gobolada Amxaarada ha noqoto intuba amarka waxay ka qaadanayeen madaxda TPLF sidoo kale ayuu ka Soomaaliyuna ka qaadanayay marka in si guud loo maro waa fiican tahay laakiin qirashada ayuu kaga duwan yahay madaxweynaha kilka Soomaalidu dunuubta uu leeyahay waa la igu qasbay inaan sameeyo taas ayaa isaga gaar u dhigay waa qodobka dib u heshiisiintana go-aanka dib aad u wanaagsan yahay Soomaaliba u baahan Ethiopia u baahan laakiin lazman waa in leadershipka kililku isbedelaa dib u heshiisiintu way fiican tahay laakiin dib u heshiisiin waxay hadda ku suurad geli kartaa isagana raaligelin lagu siin karaa sida ugu dhaqsaha badan inuu Cabdi Maxamed kursiga uga dego isla markaana diyaariyo qorshe kala guur ah oo awoodda looga guurinayo xafiiskiisa awood cusubna la dhisayo ilaa inta doorasho dambe ka dhacayso taasi waxay u horseedi kartaa in wadahadal dib u heshiisiin iyo israaligelin ummadda Soomaali ee kililka lagu soo tallaabay Faisal Roble oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha gobolka oo aan telefoonka magaalada Nairobi ku wareystay halkaad nagala socotaana waa BBC London waxaa noo soo socda Soomaali Oromo ku dagaalamay Ethiopia waxaan si markaan u galaynaa magaalada Muqdisho oo xaafadda liirada suuqa xoolaha rabshada ay ka dhaceen isla xaafadaas miino wadada la dhigay ayaa ku qaraxday baabuur ciidan waxaa xigay rasaas wixii halkaa ka dhacay iyo sida xaal yahayna waxaa khadka toos magaalada Muqdisho ugu jira wariyaha BBC-da Ibrahim Maxamed Aadan oo noo warrama cabdinuur rabshadahani waxay maanta ka dhaceen xaafadda suuqa xoolaha ee bilowgii horeba gaari kuwa ciidamada ah oo marayay suuqa xoolaha ayaa dadka deegaanku waxay BBC-da u sheegeen in rasaasi ay ka fakatay halkaasna qof uu ku dhintay dhowr qofna ay ku dhaawacmeen dabadeedna dadka deegaanku waxay bilaabeen banaanbaxyo ay uga soo horjeedaan ciidanka waxayna sheegeen in ay aada uga xun yihiin dhibaatada ciidanku ay geysteen waa sida ay hadalka u dhigeen waxayna sheegeen in dhibaatada ciidamadu ay soo laalaabatay intii banaanbaxaasi uu socday oo rabshadahaasi wadada dheer ee laamiga ay ka dhacayeen ayaa kulanyo ciidamada midowda Afrika ah oo iyana wadada soo maray waxaa markii dambe haleeshay miina wadada dhinaceeda la dhigay mid kamid ah gaadiidka ciidamada AMISOM ay miinadaasi qabsatay in cabaara ay ciidamada AMISOM joogeen iyaga laftigoodu rasaas bay fureen dadka deegaanku waxay leeyihiin dad baa ku dhaawacmay ilaa hadda guud ahaan rabshadihii maanta ka dhacay dadka deegaanku waxay BBC-da u sheegeen in laba qof ay ku dhimatay dad 5 qof gaarayana ay ku dhaawacmeen xiriir aan la sameeyay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax uu ka gaabsaday inuu arrintan ka hadlo sidoo kale waxaan xiriir la sameeyay gudoomiyaha degmada Hilwaa Cabdi Fataax oo isna sheegay in rabshada ay ka dhaceen Hilwaa laakiin aanu doonayn inuu hadda ka hadlo marka xaaladdu waxaad moodaa gelinkii dambe inay caadi ku soo laabatay oo isu socodka dadka iyo gaadiidkuba ay dib u furmeen laakiin rabshadahaas ayaa maanta xaafadaasi ka dhacay Cabdinuur aad iyo aad buu u mahadsan yahay wariyaha BBC-da magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan aan ku noqdo Ethiopia oo guddiga lanqayrta cas ee caalamiga ICRC-da uu sheegay in 800 oo kun oo qof ay ku barakaceen koonfurta dalka Ethiopia markii halkaasi dagaalo beeleed ay ka dhaceen dhinaca kale meelo kale waxaa ku sii fidaya dagaaladii Soomaalida iyo Oromada ee dalka Ethiopia iyadoo la soo wariyay in xoolo dhaqato Soomaaliya inta la weeraray xoolihii laga dhacay Cabdi Fataax Ibrahim Cagayare iyo markii horeysay arrintaasi wuxuu ka wareysay wariyaha Jigjiga Cabdinaasir Xikam hay'adda lanqayrta cas ayaa waxay sheegtay deegaanka loo yaqaan galbeedka Guji inay dhibaato ba'an ka jirto oo isku dhacyo beeleed ah waxayna sheegtay in dad si qasab ah guryahooda looga saarayo dhibaato badan oo baahsanna ay halka ka jirto hay'adaha adduunkuna ayna ka jawaabin dadkan qaxootiga oo ayna waxba siinin ee deegaankooda ku dulqaxay arrintan ayaana ku soo beegantay xilli isku dhacyo beeleed ay ka jiraan qoomiyadda Oromiya iyo qoomiyadda Soomaalida
waxay arrintaasi ku soo socotay oo ay ka bilaabatay markii dambena degmada Mooyaale Tudeed haddana agaarka magaalada Nageyle ayuu dad badan dhibaato ka soo sheeganaya oday deegaanka Nageyle ku sugan oo aan wareysanay ayaa sida noo sheegay colaada oromadii Soomaalida xuduud ay ka jirtay gudaha u soo rartay dadka Soomaalida ee gudaha degnaa ayaa boob iyo dhac iyo dil lagu hayaa tusaale meeshii la yiraahdo degdoon Carabi xoolaha waa laga boobay ilaa 58 qoys saldhigga booliska lagu hayaa dad kalena duurka amni ahaan looga hayaa meeshii la yiraahdo waa dara sida oo kale weyn dad wadada ayaa lagu haystaa dadka agar maaram xagga degmada la yiraahdo soogta dadkii waxay haysteen waa laga wada qaatay oo iyagana xaray ku wada jiraan cilada ugu badan oo haysana waa nimanka booliska iyo arbaaba tara nimanka la yiraahdo ciidamada gaarka oromada ay haysato hataa dadka shacabka kuwaas ayaa ka daran hadii cabashan muujinayna dawladda dhexena waa dibida ay ka jirtaa ma uu gudaha kama jirtaa dad fiirisid ra'iisul wasaaraha cusub dawladdu madaxda ka yahay dibiddu bay ka boobonsan tahay laakiin waxa gudaha ka dhacay holaca gudaha ka dhacay danka ma laha barnaamijkan wuxuu gacanta ugu jiray maanta hooynayo waa niman dhalinyaro oo qeyr oo la yiraahdo iyo maamulka oo isku xiran dadweynaha dadkaana kicinaya marka arrin adag baa jirta cabashan dawladda Itoobiya haday wax qaban karto dadka in wax loo qabto oo ugu yaraan la gudbiyo la geeyay Soomaalida ay ku nool tahay saasaan codsan lahayn hadii suurtagal ay tahay kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanka Nageyle marka Cabdinaasir isku dhacyada Soomaalida iyo Oromada muddo ay soo socotay badanana dadku waxay eedeynayeen Oromada inay dagaaladan iyo waxan ka dambeeyaan marka ma ku soo ragashay inaad madaxda Oromada la hadashid oo dhinacooda aad weydiisid waxay arinta ka oranayaan waxaan la xiriirnay mas'uuliyiinta deegaanka Oromiya gaar ahaan madaxfiiseedka warfaafinta dowladda deegaanka Oromiya Dr. Nagari Linjo laakiin telefonkiisii ayaan in badan ku celcelinay uuna noo bixi waayay haddaba TV-ga qaranka ee dowladda deegaanka Oromiya ayuu xalay ka hadlay madaxweynaha deegaanka Oromiya wuxuuna hal eray ku yiri kooxo ayaa jira qasaya deegaanka Oromiya gudihiisa waxayna ku doodayaan in ay xuquuqda Oromiya u soo dhicin doonaan laakiin dhibaatooyin badan ayay ku hayaan deegaanka Oromiya dowladda kaligeedna waxba kama tari karto waxaan ka codsanaynaa ayuu yiri shacabka Oromiya in ay dadkaas u soo jeesadaan qaswadayaasha kooxahaas waxay joogaan ayuu yiri dalka gudihiisa iyo dibadiisaba isbedelkan siyaasadeed ee wadankan ku socdo ayay ka cagajiidayaan oo ay diidan yihiin ayuu hadalkiisii ku soo gabagabeeyay aad buu mahadsan yahay wariyaha BBC-da Cabdinaasir Xikam halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC London safiirka cusub ee Mareykanka uu soo magacaabay Soomaaliya wareysi ku saabsan ayaa noo soo socda hase ahaatee markaan waxaanu u gelaynaa sheeko kuwaas hore ka duwan madaxweynaha Mareykanka sidii haday aad maqlayseen waxa uu joogaa dalkan Britain markii uu Brussels ka soo ambabaxay safarkiisa aad iyo aad ba warbaahinta uga hadlaysa yaa la socda muxuu wataa yaa ku weheliya wararkaas waxaa la socday Mawlid oo ila fadhiya Mawlid cabdinuur waa sidaa sheegtay horta madaxweynaha waddanka Mareykanka marka la yiraahdo waa safraya waa waddanka waad garanaysaa waa waddanka adduunka ugu awoodda badan marka safarkiisuna waa ka muuqanaysaa waxaa la socota madaxweyne Donald Trump ilaa iyo 1,000 qof oo shaqaala waxa kaloo la socda baabuur fara badan oo waxa ka mid ah baabuur gaar ah oo isaga uu leeyahay waxa sidoo kale jira helikabtar kala duwan oo ka qayb qaadan intuu ku jiro safarkiisa waddankan UK diyaaradda wadda waxa la yiraahdaa Air Force One waa diyaarad nooceedu yahay 747-200S waana diyaarad markaasi waxay leedahay qaabab kala duwan gaar ahaan habab sir ah oo markaasi lagu kala garanayo diyaaraddaasi gudaheeda marka la yiraahdo waxa ay ku fiisan tahay ilaa iyo 4,000 oo kilomitir 4,000 oo square ayaa lagu sheegaa waxayna leedahay meel gaar ah oo lagu talagalay madaxweynaha inuu fariisto xafiis weyn meel gaar ah oo markaasi lagu talagalay in lagu shiro waxay leedahay qayb dhinaca caafimaadka waxay leedahay qolol shaqo waxay sidoo kale leedahay 2 meelood oo lagu talagalay in dadku ay ku cunteeyaan oo 100 qof isla markiiba ay ku cunteyn karto waxa kaloo jirta madaxweynaha marka waddanka Mareykanka uu ka baxayo waxa dusha sare kala socota diyaaradiisa diyaarad kale oo nooca dagaalka oo la yiraahdo Air Force C-32 taasi oo markaa loogu talagalay arrimahaasi baabuurkiisa gaarka waxa la yiraahdaa The Beast waa baabuur
nooca la yidhahdo limonsega waxaana lagu naanaysaa the pest waa gaari ay ku dhan yihiin dhammaan dhinaca waxyaalaha markaasi ammaanka loogu talagalay gaar ahaan waxyaalaha lagu wada hadlo oo kale gaarigaasna waxaa sida diyaaraddaasi waa gaari qiimihiisa ku fadhiyo 1.5 milyan oo dollarka maraykanka madaxweynaha si gaar ayaa halkaasi loogu talagalay waxay leedahay waxyaalo haddii ay dhacday xitaa habeenkii gaarigaasi gudihiisa layarku la iska arki karo keligiis inuu socon karo waxaa kaloo jirta inay ku rakaban yihiin waxyaalaha markaa loogu talagalay oksijiinka haddii madaxweynaha ay ku dhacda neefqabad oo kale in la siin karo sidoo kale waxaa ku rakaban taayaro loogu talagalay in ay gaarigaasi haddii xitaa ay burburo uu socon karo markaasi sidoo kale waxaa jira in gaarigaasi uu sidoo kale leeyahay qayb gaara oo dhiig loogu talagalay madaxweynaha haddii u baahdo dhiiggiisa in markaasi loo baahdo in dhiig lagu shubo sidoo kale wuxuu leeyahay isgaarsiin u gaar ah oo haddii ay dhacdo in isgaarsiintii oo dhanba ay burburto adduunka oo dhan isagoo si gaar ah satellite gaar ayaa ugu rakaban baabuurkaasi waxaa kaloo la sheegaa in ay jiraan in madaxweynaha sidoo kale helikobtero fara badan ay ayagoon la socdaan shaqaalo fara badan ayaa sidoo kale ka mid ah iyadoo la sheego in inta badan dad gaar ah ay qaabilsan yihiin waxyaalaha uu cunayo meesha uu fariisanayo sida uu hadlayo waxaasi oo dhan waxaad ka tagtay 13 wariyana diyaaradii u saaran yihiin oo kuwii maaragtay ahaa wariyayaasha kuwii wakaaladaha wararka ku dirayay kuwii wax daabacayay kuwii sawirada qaadayay kuwii telefishinada iyo mid idaacadaha ka hadla waa tahay aad baad u mahadsan tahay mawlid halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee BBC London xaggiina saacaddu waa 5:00 markaanoo kale waxaan idin xasuusinaa qodobada wararka caalamka ugu waaweyn aan ka codsada mar kale Axmed Mursal madaxweyne Donald Trump ayaa ka degay dalka Britain halkaas oo ay uga bilaabanayso booqasho 2 cisho ah inta uu ku guda jiro booqashadiisa waxa uu la kulmi doonaa boqoradda Elizabeth iyo ra'iisul wasaare Theresa May wasiirka cusub ee Britain u qaabilsan ka bixitaanka midowga Yurub Dominic Raab ayaa hoosta ka xariiqay soo jeedinta cusub ee ku aadan xiriirka uu dalkaasi la yeelan doono midowga Yurub ka bixitaankiisa kadib asagoo ugu baaqay midowga Yurub in ay ka soo jawaabaan Mr. Raab ayaa baarlamaanka Britain ka hor sheegay in xukuumadda London ay wada xaajood u marayso qaab ku dhisan isfaham iyo saaxiibtinimo dowladda Suuriya ayaa dib u qabsatay deegaanada ay fallagadu gacanta ku hayso ee koonfurta magaalada Darca halkaas oo ah goobtii uu 7 sano ka hor ka bilowday kacaankii looga soo horjeeday Bashaar al-Asad gawaarida dowladda oo ay weheliyaan militariga Ruushka ayaa la arkayay iyagoo sii galaya deegaankaas madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in uu haatan ku faraxsan yahay isbahaysigiisa NATO iyo ballanqaadka ay sameeyeen ee ah 33 bilyan ee kharashka dheeriga ah ee loo qoondeeyay kharashaadka militariga shir jaraa'id oo ka dhacay Brussels ayuu ka sheegay in isbahaysiga NATO uu aad uga xooggan yahay 2 maalmood ka hor markii uu bilowday shir madaxeedka isbahaysiga NATO wuxuu goorsii horeysay ku eedeeyay dalalka Jarmalka Spain iyo Belgium in ay ka gaabiyeen bartilmaameedka isbahaysiga ee ah in 2% ka mid ah dakhligooda ay ku bixiyaan dhanka difaaca Cabdinuur mursal aad buu mahadsan yahay madaxweyne Trump dhawaan Soomaaliya wuxuu u magacaabay safiir cusub waa Donald Yamamoto wuxuu madax ka yahay xafiiska Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda Washington muxuuse gobolka iyo Soomaaliya oo la yiraahdo xaaladooda aad buu ula socdaa uu ku soo kordhin karaa su-aashaas iyo kuwo kale ayaan markii horeysay waxaan weydiiyey Cabdirashiid Xaashi agaasimaha macadka cilmi baarista siyaasadda ee Heritage fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho horta ambassador Yamamoto waa diblomaasi aan siyaasad ahaan hadda qof iskaga keensane ilaa 1980kii wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ka shaqeynayay qaybta Afrika u badnaa 2000 Djibouti ka ahaa safiir kadib Ethiopia 2006 ka ahaa Afrika qaabilsanaa Soomaaliya u dhundaloolay xataa diasporaha Soomaalida Minneapolis iyo Washington Seattle u tagtagayay oo wareysanayay marka waa nin xoogaala gobolka yaqaana Soomaaliya iyo gobolkan hadda aad hawshiis u fiirsan tahay aad u fahamsan weeye inkastoo siyaasadda America oo shaqeynayo siyaasadda Mareykanka iyo dawladdiisa uu matalayo laakiin nin loo qaateen oo xoogaala baa Donald Trump soo magacaabay marka waa nin loo fasiran karo waa opposite-ka Donald Trump hadda waa dadku waa yaqaanaan suu fikiro iyo suu dhaqmo waa nin cagsigiisa lagu tilmaami karo safiirka isaga ka horreeyay Mareykanka ee Soomaaliya waa uscasiri Soomaaliyana hadda Mareykanka ciidamana waa ka joogaan marka ma isbedel baa ku dhacay siyaasadda Mareykanka ee gobolka iyo Soomaaliya
siyaasadda horta maraykanku mar ciidanka wasaaradda gaashaandhigga mar siyaasadda hogaamisa oo markii dagaalo ku jiraan ama argixisaba dagaalamayaan pentagonka hawshu ka socotaa mar CIA-da dad bacsanaysa oo arrinta horboodaysa marna wasaaradda arrimaha dibadda iyo state departmentiga baa hawshii gacanta ku haysa marka ninkan waa nin diblomaasi qodan ah wadamada xuquuqday leeyihiin buu yaqaanaa waajibka saaran isaga diblomaasi ahaan buu yaqaanaa nin iska socdo oo kaba qaba buuda qaba maahan oo araga iska maaragtay iska mushaaxayo oo askari ah oo qorina wata maahan ama nin spy ah oo maaragtay ciduu dila iyo ciduu la dagaalamaya argixisa bacsanaya maa ninku waa nin diblomaasi xeerarka diblomaasiyaddu yaqaanaa sharcigu yaqaanaa dalalku yaqaanaa afghanistan buu kasoo shaqeeyey ciraaq buu kasoo shaqeeyey marka dalalka nugul buu yaqaanaa waajibka dalka soo koraya iyo dadkan fikarayan buu yaqaanaa marka in nin xasilan oo siyaasadii fahamsan oo diblomaasi qodan ah inuu caradii yimaado gobolkana kasoo shaqeeyay oo hadda aan la buucsanahayn waxay keenaysaa inuu maaragtay fikradda saxda ah dalkan ka jirtana fahmo oo gudbin karo dalkiisa la wadaagi karo waa shaqada diblomaasiga waxa weye dalka waxaa ka jiran inuu dalkiisa u sheegi karo dalkiisa wuxuu qabanaya inuu meesha keeni karo danaha labada wadan isqoonsiin karo marka nin xataa dawladaha maaragtay hadda meesha jooga waxaa dhici karta nin ay isaga shaqaystaan oo iska khabardaar oo dawladan iska waardiye waxay rabaan islamaya inuusan noqonin nin dee dadkii o dhan la sheekeysanayo baarlamaankii la sheekeysanayo goboladii la sheekeysanaya siyaasiyiintii oo dhan fahmayo inuu noqdo oo waxna ogba oo xataa aan la khaldi karin diblomaasiyadda markay kuwa cusub yimaadaan waxaa dhici karta qolo qalinshubata inay afka ugu dhacaan ama intuu acrada waa la qabsanayo oo xeeradii fandhal kala dhacaan laakiin nin bahashii fahamsan oo dhiskigii wax walba ku dhacayeen joogay gobolka dhan kasoo shaqeynayay waxaa dalkiisana ma uu misleed gareynayo ama ma uu hodahayo dalka ula joogana hadduusa dee hagar ku jirin waxa ka dhex socda nin fahamsan buu noqonaya laakiin nin intii aan wax la socon imaan lahaa nin xoogaala inuu yimaado waxaan leeyahay arrin lasoo dhaweyn karo haddii ninkani uu gobolkii horey uga soo shaqeeyey ma kula tahay beriyo dhexdaasna waa laga sheegaya gobolka inuu lug ku yeelan karo arrimahan isbedelada etoobiya iyo isdhexgalkan hadda iyo isa soo dhaweyntan etoobiya iyo eritrea xogta ugu dambaysa runta aan laguma hayno laakiin waxaan taxliilka aan saari karno waxa weeye etoobiya waa gobolka ugu muhiimsan ama ugu dad badan ama ugu maraykanka ugu dhow dal culus weeye marka shaki ma laha maraykanku inuu isbedelkaas ka socday xawaaraha ku socday inuu suuragal tahay inuu caawiyo oo ay maaragtay isfurfurka hadda etoobiya ku dhex jirto in tala badan oo caalamiyana lala watay inkastoo madaxdooda ay madax dhiiran u eg tahay hadda ninkaan meesha yimid marka waa suuragal maraykanku inuu tala iyo dareenkoodaba la wadaagayo safaaradana waaba u joogaan isaguna wada khabiir buu ku yahay safiir waa ka ahaan jiray markii hore 90-kii hadda soomaaliya ay burburteen anagu dee Seljuqland u dhacnay anaga sinaha iyo meelo badan ka jabnay ayaguna diyaaradooda si tartiiba lagu caga dhigay haddana waxaa moodaa nimankan tikreega carada haystay 20 sano in horumar iyo amni sugud iyo maraykanka la shaqaysasho iyo dalkooda isku hayn iyo hawlo badan ku jireen haddana adduun dimuqraadiyaddii isfurfurkii loo batay waa lagu jiraa marka shaki igama jiro inay talo ku siiyeen oo kuwii meesha haysteen ay dhaheen tartiibsada cidna maaragtay dalkaha diinsa in kaga siibi mayso kuwa meesha qabsadayna la yiri de maaragtay hawshana wada tartiibsadana talo noocaas in la siinayo waa wax la qiyaasi karo laakiin anagu xoogaa hoose ma nihin laakiin dareenkaas waa la qabi karaa aad buu mahadsan yahay cabdirashiid khaliif xaashi agaasimaha hay-adda heritage oo iga warramayey safiirka cusub ee maraykanku u soo magacaabay soomaaliya oo dhegeystayaasha laanta af soomaaliguna afkaar kala duwan ay ka soo dhiibteen magacaygu waxaa waadan kulmiye oo ku magac dheer xaawakeen safiirka cusub ee maraykanka usoo magacaabay dalka soomaaliya ee bedeli doona safarkii hore aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa waxayna muujinaysaa in labada wadan siyaasadoodu ay si aada u wanaagsan tahay una wanaagsanaanayso sanadadan dambe sidoo kale maraykanku wuxuu ka taageeraa dowladda soomaaliya dhinaca ciidamada iyo waliba dhinaca cirka ee ciidamada oo kala dagaalamo al-shabaab iyo kooxaha kale ee dowladda soomaaliya kasoo horjeeda magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed cabdiweli oo jooga magaalada muqdisho in madaxweyne donald trump uu soo magacaabo safiir cusub dalka soomaaliya waxaan u arkaa mid uu ku fushanayo danihiisa siyaasadeed ee gaarka uga ah dalka soomaaliya ayaanase laakiin ahayn mid uu wax ugu qabanaya ama waxtar iyo faa'iido u leh dalka soomaaliya magacaygu waa baxsan barkatalan oo joogta magaalada buurama aniga waxay ila tahay safiirka cusub ee maanta loo magacaabay soomaaliya waxba inuuna soo kordhinayn oo kii hore ee xilka haruusay iska casilay una waxba ka duwanayn mar walba maraykanku wuxuu sheegtaa inuu duqeyn uga geystay soomaaliya oo duqeynaya ururka al-shabaabna uma baahno duqeyn cirkiga waxay u baahan tahay dagaal dhulka in lala galo taas haddii aanan la helin al-shabaab awoodeedu xaliya waxay iska bedelayso ambaahay awoodeedu ku wiiqmaysay ma jirto marka hadduu maraykanku rabo in uu al-shabaab wadanka uu ka xoreeyo
sameeyo amba dowladda Soomaaliya garab istaago waxa habboon inuu ciidan u tababaro wadanka ka xoreeya al-shabaab. Waad mahadsantihiin BBC fursada qaaligeed na siisan. barnaamijka doodda jimcaha ee waxa ila tahay waxaynu ku soo qaadanaa mawduuca toddobaadka ugu weyn inagoo ku casuunna dad khibrad iyo aqoon u leh falanqaynta qodobka laga doodayo. waxaynu si gaar ah diiradda ugu saarnaa dhacdooyinka saamaynta ku leh Soomaalida iyo dunida inteeda kale sida siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. dhegayste adiguna ka qayb qaado oo ra'yigaaga ama su'aal haddii aad qabto ku soo gudbi Facebooka, qoraal ama cod iyo weliba barta Twitterka. galab walba oo jimco ah ka dhegayso raadiyaha online-ka iyo mobilkaaga. ha moogaan oo yaanu ku seegin barnaamijka waxa ila tahay. kenya waxaa ka socota dood oo weliba cara dhalisay markii 20 siyaasi Russia ay u aadeen inay ku soo daawadaan koobka kubadda cagta adduunka oo hadda wadaana dawladda ayaaba kharashkooda bixinaysa. su'aalaha la isweydiinaya waxaa ka mid ah maxaa Kenya faa'iido ugu jira, laakiinse xildhibaanada labada aqal ee safarkan u baxay oo 4 ciyaarood ee daawanaya waliba ciyaarihii ugu dambeeyay ayaa waxay leeyihiin waxa loo baahan yahay in aqoon laga korsado sida wadalba u martigeliyo tartan caalami ah sida kan oo kale. wariyaha BBC Ferdinand Omonde ayaa ka warramaya, waxaa soo jeedinaya Ciise Xaaji Cabdulle. siyaasiyiintan ayaa soo jiitay dareenka shacabka Kenya kadib markii ay baraha bulshada soo dhigeen sawiro iyagoo ku dhex sugan mid ka mid ah garoomada lagu ciyaaro koobka adduunka. xildhibaanadan ayaa qayb ka ah guddiga baarlamaanka ee ciyaaraha iyo shaqaalaha. ilo wareed laga helay baarlamaanka ayaa BBC-dana u xaqiijiyey in xubnaha baarlamaanka ay ku safraan qaybaha madaxda ku safarto ee qaaliga ah. xildhibaanadan ayaa hadda ku sugan dalka Ruushka muddo 2 isbuuc waxaana maalinka u socdo gunno dhan ilaa $1,000. sidoo kale qiimaha safarkooda iyo hoteelada raaxada leh ay degan yihiin ayaa lagu qiyaasay in ka badan $10,000. wasiirka ciyaaraha ee Kenya Rashid Achesa ayaa BBC-da u sheegay inuu ansixiyey safarka 6 xildhibaan oo kaliya si arrintaasi u soo indhaindhayaan, iyadoo ahmiyadda ugu weyn ay tahay in Kenya ay wax ka barato qaabka loo qabanqaabiyo tartamada waaweyn. hase ahaatee dadka baraha bulshada isticmaala ee Kenya ayaa safarkan ka carooday, waxayna su'aal ka keeneen inta uu dhan yahay wafdigan iyo sababta ka dambeysay inay ku safraan qarashaadka dadweynaha. saxaaji aad buu mahadsan yahay. halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC London. mar dhaweyd waxaa fariistay baarlamaanka dalka South Sudan, waxay u codeeyeen in 3 sano oo kale loogu daro madaxtinimada madaxweynaha dalka Salva Kiir. dadka arrimaha gobolka ka faalloodana waxay u arkayeen arrintaasi inay dhici karto inay sii xagal daaciso heshiiskii nabadda ee dhowaan ee mucaaradka iyo dowladda dhex maray. dalka South Sudan kumanaan qof ayaa ku dhintay dagaaladii sokay ee waddankaasi ka dhacay. 3 dalool oo meel dadkii waddankaasina dagaalada ayaa barakiciyey. waa tahay iminkana Soomaaliya oo dowladdu ay bilowday diiwaangelinta ciidamada waxay ka dambeysay cabasho ka timid wadamada gacanta ka geysta dhismaha ciidan qaran. wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Baylo BBC-da u warramayna waxa uu sheegay sanadkan inta uusan dhammaan in la heli doono tiro sugan oo rasmi ah oo ciidamada Soomaaliya. wariyahayaga magaalada Muqdisho Cali Nuur Salaad ayaa wasiirku u warramay. diiwaangelinta hore shaki badan baa ka yimid hadday waxay noo diiwaangelsan yihiin oo markaad kaadh waxaad arkaysaa iminka waxyaalaha soo baxaya sida lanoo sheegayo kaadh baad arkaysaa 3-4 qof haystaan oo nambar keliya laakiin walba sawirkiisa ku dhegan yahay. taasina meesha ka baxdaan rabnaa. kaadhadh yaallabaa jiro aan ciidama haysan oo aan jirinba, kaadhadh aan qorraynba baa jiro dad haystaan. marka waxyaalo badan oo isku murugsan ayaa jiro la doonaya in la tafatiro oo la hagaajiyo oo ciidan rasmiya oo maanta haddii la yidhaha ciidanka heblaayaha loo yeedho waa imisa waa kunkiina isu taga marabna. mudan wasiir, sida aanu ka warqabno ciidanku waa qaybo badan yihiin. marka tira koobkooda ama tiradooda rasmiga laga hadlayana way kala duwan yihiin oo militariga waxaa la sheegaa in ay tiradooda rasmiga dowladda lafteeda aanay haynin. waa kuwa ciidanka aad tira koobaysaan iminka? militariga ugu dhib badan saa sheegtay, sababtuna waxay tahay way kala baahsan yihiin, meelo kala baahsan oo kala fog bay joogaan. waxaan ku bilownay ciidanka halkan degan Muqdisho 5 iyo 200 waa intaa. maanta aan kula hadlayo agagaarkii magaalada ayaa tira koobkoodii lagu jiraa oo loo mareynaya ilaa 2,000 yihiin. ilaa imika ilaa 1,000 la sameeyey baan u malaynayaa. marka tan la soo dhameeyana waxaa loo gelayaa markaa in regionada loo gudbo
gruub kale oo kuwaa la midina waxay tirin doonaan way ka fudud yihiin laakiin ciidankii booliiska ayaa iyaguna meesha yaalla oo iyagana la doonaya tirakoobkoodii in la galo marka isku soo wada duub waxaa loo baahan yahay sanadkan intaan u dhammaan inaan askari wal oo ciidanaba aan nambarkiisa iyo wixiisa naqaano oo aan cid kale falsifay garay karin waxaanu ka warqabnaa in dhowr jeer oo hore ciidanka diiwaangelin loo sameeyey oo dowladdu mararka qaar ay mashaariic ku siisay shirkado diiwaangelinta sameeya kan muxuu kaga duwan yahay kii hore maxaa qalab ah oo aad u isticmaalaysaan habka maanta lagu ogaanaya waxa weeyaan habka in qofka suulka laga qaado in isha laga sawiro in magaciisa meeshu ku yimid taariikhdiisa la hayo sidiisa yaro kooban meel lagu sameeyo marka ciidankeenna arrinta waddankeena security buu badan yahay dhibaatadiisu securityga si loo sugi lahaana qayb bay ka tahay mudan wasiir marka laga hadlayo tirakoobka ciidan gaar ahaan ciidanka militariga oo ciidankii dalka difaaci lahaa ah shaacinta tiradooda waa arrin aad xasaasi u ah yaa hawshan ku jira yaa tirakoobaya ciidanka waxaa laysla wada gartay laysla wada goostay ciidamada ragga ugu sarreeya marka soo qaada iyo dumarka ugu sarreeya wasiirkooda aad ka soo qaado madaxweynaha iyo prime ministerkuna hoggaan ugu yihiin in dadka la diiwaan geliyo waa laysku raacay waa lagu dhaqaajiyey wasaaradda maaliyadda koox baa samaynaysa wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda difaaca muxuuha wasaaradda gaashaandhigga iyo ra-iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha guruub intaa ka kooban ayaa diiwaan gelinaya sidaad sheegtay 5,220 oo ready account-kooda waa la furay mushaaraadka ciidanka marka laga hadlayo waxaa ina caawiya dowlado kale nidaamkan cusub oo aad wadaan iyo dowladahaas qaarkoodba ay si toos ah u bixiyaan mushaaraadka ciidanka sideed rabtaan inaad isku waafajisaan inta badan ma bixiyaan inta badan inagaa bixina EU-da waxoogaa bixisa booliiska militariga maanta inta ugu badan inagaa bixina halkan xafiiskan laga bixiyaa budgetka dowladda laga bixiyaa cid walibana waxay sugaysaa marka dadkii lasoo tirakoobay lasla wada garto ayaa laga yaabaa dowladaha qaar ama EU-du inay tiraahdo waa ka caawinayna caawimo yaroo waqti kooban oo bay noqonaysaa systemka marka la isla wada garto halkaas way system ka soo geli doonaan arrinta daahfurnaanta iyo maamul wanaagga maaliyadda iyo maamul ahaanta generally waxay sahlaysaa in adduunyada kale wax ku soo darsan karto ilaa aan sare kacayno taasaan ku tali jiraa marka wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Beyre oo Muqdisho ugu warramay wariyahayaga Cali Nuur Salaad isla Soomaaliyana xoolo dhaqato miyiga ee degmada Taleex ayaa waxa ay sheegeen in ay khaati ka taagan yihiin dhurwaa barqadii dadka soo weerarayo xoolihii dafaya taasi waxay qasabtay bay yiraahdeen xoolo dhaqatadii haatan inay subeeyaan oo si ay isaga dhiciyaan dhurwaaga xasan maxamed jaamac oo reer Taleexa ayaa dhibaatadaasi dhurwaaga aan gabanayn ay ku qabaan wuxuu uga warramay wariyahayaga Axmed Cawil oo jooga Garowe waxaan la soo xiriirinayo dhibaato baalka dhurwaaga ah dalka uu ku hayo oo weerarayo oo awal habeenkii xoolaha laga ilaalin jiray uu maalin xoolaha weerarayo dadkana looga baqayo inuu si dhaqso leh u cuno ayaa dhibaato aad uga cabanaya dhulka laga cabanaya waa xagee dhulkaas hadda meeshaan kaala hadlayo waa Kalcad Taleex iyo 40 kilomitir waxay ka xigtaa dhinaca qorraxdu u dhacdo waa macnaha inta soona Taleex oo dhan dhammaan inta ka tirsan oo dhan waa sidaas ayuu weerar ugu hayaa bahalkan waraabaha sidaan la soconno deegaanadaas waa uu ka jiray xoolaha waa laga ilaalin jiray habeen iyo maalinba marka maxaa siyaadaha ku aragteen waxaan siyaada ku aragnay bahalku qof weyn oo qoyska mooyaane qof kale kama cararayo marka ay ari la joogaan dumarka iyo caruurta danka geli maayo wuu ku weeraraya maalin awal xoolaha habeenkii wuu dhici jiray waa la oodan jiray wixii dibooda wuu xuri jiray marka cabsi ah ayaa nagu jirta hadda inuu caruuraha iyo dadka weeraro marka dhacdooyinka uu geystay maxaa ka mid ah hadda oo aad noo sheegi kartaa mushkilada jirta waxa weeye hadda dadka reer miyiga xoolo badanna ma ay lahayn xaymaha u hadho abaaraha uga soo doogay reerka ugu badan 50 ari u haystay iyo 2 rati waxa weeye caruur baa u raaci jirtay iyo dumar ninkuna ama wuxuu raacin jiray qutul duunku raacin jiray tuulooyinka dhulka uga doori jiray waxa dhacday ninkii inuu arigii iyo awrkiisa u dhex taagnaado dadkii dumarkii iyo caruurtiina ay gurigii ka bixi waayaan marka dhibaato taasaa noqotay marka dadka waaweyn markii ay xoolaha la joogaan waraabahan ma is arkaan oo sideese tahay handadaada uu u geysanayo dadka waaweyn oo ragga oo matalan qoriga sita oo kale wuu ka cararaa laakiin dumar marka uu garto qof dumara iyo caruur yar yar marka uu garto ariga toos buu ku dhaafayaa
xitaa dhagax iyagoo ku tuuraya buusan eegin iyagoo iska dhaafay ariga aadaya habeenkiina dee maba ka tegayo reerkii aan min la joogin caadi buu uga dareersanayaaba marka arrintan goorma idinla soo deristay oo aad aragteen muddo hadda 2 bilooda ayuu aad iyo aad saa'id u noqday marba marka dambe saa kasii batee bishii hore bishan kasii aad uga sii badan yahay marka ma garan karayno ma durwaad kalaa yimi ma isagii waa sida noqday ma wax arrintu ay tahay ma garan karayno aad iyo aad baa dadkii iyo dhibaata uga taagan tahay maadaama ay xoolihii yaraadeen inta badanna oo xoolaha badan uu isaga laftigiisu dhinaciisa uu ka geli jiray oo waraabahaas uu cuni jiray xoolaha xoolihii koobnaaday baa laga xaraystay ma la oran karaa oo sidaasuu weerar usoo qaadaya niyow habeenkii weerara qaado laakiin lama arki jirin maalintii ari dad waaweyn oo dumarii la joogaan qof dumar oo caruur wata ay la joogto oo uu intuu dadkii iyo dumarkii dhaafo iyagoo dhagax ku tuurayo uu dhaafo uu neef soo qaadanayo ama uu neef la dhaqaaqayo markaasay cararaan oo inta kale kaxaysanayaan jirna awel dee yaraanta xooluhuna way keenaysaa marka sidee rabtaan inaad xoolihiina u badbaadsataan oo aad wax uga qabataan arrintan wallahi hadda si kastaba waanu yeelay xitaa gobolada waxaan la xiriirna waxaanu isii bal sun xitaa in la sumeeyo oo kale la raadiyo sun hadda naafacda weli maanu helin xitaa waxaanu samaynay dadka tuulada joogaa rag intaanu wiilal aanu qarash siino ururinay niri war bal marba reerkii uu soo weeraro uu gaari kaxaysto oo maxaan ku idhahdaa qoryaqaato oo gurmad aanu u samaynay gurmada dhalinyaro gurmada baanu xitaa ururinay oo aanu samaynay hawlo noocaas ayaanu ku jirnaa oo aanu hadda gurmadkaasaan ku jirnaa wax taakula oo ama hay-ada ama taakula kalena dee kama helo oo dhalinyaradi dadkii tuulada joogay unba hadda aada sii abaabulayna waa gartay marka dhalinyaradu ilaa hadda wax ay u geysteen hadda dabin aan u dhigno oo kale oo yaal badan isku dhignay 2 xabo waan ku dilay laakiin de wax 2 midhi wax yeelayaan ma ay aha waa wax iska dhaqaaqay dal iska dhan oo iska dhaqaaqay oo waa dhibaatadiisu ay fara badan tahay waa tahay halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee b b c london iminkana ee dalka suuriya u gelaynaa ciidamada dowladda suuriya ayaa dib waxay u qabsadeen magaalada diraaca koonfurta dalka ayay ku taallaa in dhawaale halkaas iyo agaarkeeda dagaalla xun baa ka socday waana caan waxa ay ku ahayd inay ahayd halkii 7 sano ka hor uu ka bilowday kacdoonkii waddanka suuriya gilgilay ee bashaar al asad iyo xukuumaddiisa lagaga soo horjeeday magaaladaas iyo kuwo kaloo in dhawaale ciidamada dowladdu ay gacanta ku dhigeen iminka waxaa ka babanaya oo dhismayaasha dowladda oo dhan dul saaran calankii ee suuriya wariyaha b b c da maxamed abdiraxmaan ayaa ka warramaya xogaga taabacsan dowladda suuriya ayaa maalmihii lasoo dhaafay horumar ka sameynayay duulaanka ay ka wadaan guud ahaan gobolka darca dagaalyahanada mucaaradka ayaa cadaadis lagu saarayay inay ogolaadaan heshiisyo ay ku wareejinayaan dhulka ay ka haystaan gobolkaasi ciidamada dowladda suuriya iyo xulafadooda ruushka ayaa lagu soo warramayaa inay gaareen qaybaha ay mucaaradka ka haysteen caasimadda darca deegaankan ayaa ah halkii uu ka bilowday kacdoonka ka dhanka ah maamulka bashaar al asad in ciidamadiisa ay hadda ku soo laabtaan gobolkan gaar ahaan caasimaddiisa ayaa waxa ay wax weyn uga dhigan tahay maamulkiisa iyo weliba dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadda dalkaasi cabdiraxmaan aad buu u mahadsan yahay iminkana dalka nigeria oo madaxweyne buhari uu sheegay mar aan fogeyn inuu saxiixi doono heshiis ganacsi xor ah oo heer qaaradeed ah heshiiskaas iyo arrimihiisa iyo sidaa uu u shaqaynayo ayaa waxaa laga warramay markii booqasho gaaban ee dalkaasi nigeria uu ku tegey madaxweynaha south africa ramaphosa wariyaha b b c da chris ecower ayaa ka warramaya waxaana soo jeedinaya ciise xaaji cabdulle tani ayaa ah calaamadda muujinaysa inay wax iska beddeleen mowqifkii hore ee madaxweyne muhammadu buhari bisha maarse ee sanadkan waxa uu ka baaqday shirka lagu saxiixayey heshiiska ganacsiga xorta ee qaaradda afrika oo lagu qabanaya dalka ruwanda madaxweynaha ayaa hadlaya isagoo uu barbar taagnaa madaxweynaha koonfur afrika cyril ramaphosa waxa uuna sheegay inuu weli ka baaraandegayo heshiiskaasi waxa uu intaasi ku daray inuu aad ugu gaabinayo inuu saxiixo heshiiska sababtoo ah waxaan fiirinaya ayuu yidhi caqabadaha ay ku yeelani karto dhaqaalaha dalka nigeria muhammadu buhari ayaa sheegay inuu ahamiyadda ugu weynsiini doono in warshadaha ay shaqo abuur u sameeyaan dhallinyarada dalkiisa balse uusan doonaynin in tartan cidna uu la galo heshiiska ganacsiga xorta ee qaaradda afrika oo ay saxiixeen 44 dal ayaa waxaa looga gool leeyahay in sare loogu qaado ganacsiga qaaradda dhexdeeda islamarkaana meesha looga saaro caqabadaha ganacsiga hortaagan balse ururka shaqaalaha ee nigeria ayaa cabasho ka muujiyey arrintani iyagoo sheegay inuusan u wanaagsanayn dhaqaalaha uuna horseedayo in shaqooyin badan ay meesha ka baxaan waddanka ugu dhaqaalaha weyn qaaradda afrika in weli uusan saxiixin heshiiskani ayaa ah mid dib u dhac ku keenayso heshiiska ganacsiga ciise aad buu u mahadsan yahay dalka bakistan xubno fara badan oo ka mid ah xisbigii waddanka xukumi jiray
ayaa waxa ay sheegeen in boqolaal ka mid a xubnahooda bileysku ay ku xirxireen magaalada Lahore. arrintaasi waxay dhacaysaa bay yidhaahdeen iyadoo doorasho guud waddanka ay ka dhacayso aakhirka bisha tan. waxaa kale oo jirta in ra-iisul wasaarihii hore Nawaas Shariif oo maxkamadii hore ay u xukuntay isaguna uu doonayo dalka inuu ku soo noqdo. wararka arrintaa ku saabsanna waxaa noo haya waryahayaga Cabdifataax Ibraahim Cagayare. xubnaha xisbiga PMLN ayaa waxa ay sheegayaan in boolisku uu xoog ku galay guryaha xubnaha xisbigaasi ee Lahore, sidoo kalena uu boolisku xiray xubno u ololeynayay xisbigaasi kuwaasi oo mas-uul ka ahaa qabanqaabinta isu soo baxyada ka dhaca waddooyinka. waxa ay sheegayaan in howlgalka uu ku adkayn doono inay qabsadaan isu soo baxyo marka uu hogaamiyahooda Nawaas Shariif uu jimcaha dib ugu soo laabto magaalada. Mr. Shariif oo haatan ku sugan magaalada London ayaa isagoo dalka bannaankiisa ku maqan waxa ay maxkamadda Bakistan u qaabilsan musuqmaasuqa ku riday 10 sano oo xariga. waxa uu Shariif sheegay inuu dalka dib ugu soo laaban doono si uu isaga difaaco xukunkaasi, kaas oo uu ku tilmaamay inuu ahaa mid laga lahaa dana siyaasadeed. Nawaas Shariif ayaa waxa uu militariga Bakistan ku eedeeyey inuu isku dayayo inuu wiiqo xisbigiisa xilli xisbiga uu ku jiro ololaha doorashada la qaban doono 25 bishan Julaay. Cagayaraad buu mahadsan yahay. markan isboortiga siiba koobka kubadda cagta adduunka ee Raashiya ka socda. England hadda waa la socotaan xalay jabkii gaaray waa ay ka hartay, waa iska soo xirxiranayaan boorsooyinkooda haddaysan sooba bixinba. laakiin dalka markaad fiirisay iyo warbaahinta iyo dareenkii meel kale ku jeestay waa la isu laabqaboojinayaa. mawlid adaa la socday maxaa jira? cabdinuur intaynan u wada gelin koobka adduunka war hadda soo dhacay ayaa sheegaya in kooxda Chelsea lagu wado inay iska fasaxdo tababaraha kooxdaasi Antonio Conte. waxaana jirta in muddooyinka ugu dambeeyay muran arrintaasi ku saabsan uu jiray. waayahay koobka adduunka haddayna dib ugu laabanno xulka horta England waa markii ugu horeysay ay soo gaareen heerkan muddo 28 sano oo koobka adduunka waa 1990 ayaa ugu dambeysay heerkan kale inay soo gaaraan. waxyaalaha marka laga filinay waxay ahayd horta 16 ayaa inta badan la filayay inay ku haray karaan, laakiin markii la soo gaaray wareegga 8 rajo ayaa soo gashay wadankii oo dhan, oo waxay xitaa keentay in dadka ka faallooda ciyaaraha iyo warbaahintii iyo taageerayaasha England oo dhanba ay niyadda gashadeen inay Croatia ka gudbi karaan isla markaasna ay koobkaba qaadi karaan. haddaba waxaa jirtay in ciyaaryahanka la yiraahdo Luka Modric oo u ciyaara kooxda Real Madrid xalayna u ahaa xudun guusha kooxda Croatia ayaa waxa uu leeyahay dadka ka faallooda ciyaaraha ee Ingiriiska waxa ay ku sameeyeen bahdil iyo yasmo Croatia. taasina waxay dhalisay buu inaynu markaa ka jawaabno arrintaasi. arrinta ku saabsan laabqaboojinta xalay oo dhan arrintaa way socotay ilaa iyo maanta oo dadka ka faallooda ciyaaraha iyo kooxda iyo ciyaartoydii hore Ingiriiska iyo tababaraha hadda ku xulka haya iyo ciyaartooyda laftigoodaba dhammaantood waxay leeyihiin inaan heerkan soo gaarnay waa heer aad u wanaagsan. dhalinyaro weeye nimankani khibrad badan ma aanay lahayn, waa tiimka ugu yar ama xulka ugu yar way dhalinyarada marka la fiirsho xagga khibradda oo kale. marka khibrad badan taasi qiil ma u noqonaysaa fiiri Tunisia iyo Panama ayaa ku soo aaday Croatia kooxihii ku soo aaday waad ogeed. waliba Croatia dhibaatada ay qabtay waxay ahayd 90 daqiiqo markuu dhamaaday haddana 30 daqiiqo laba ciyaarood oo kale tii xaraw saddex u ahayd haddii cidaalaysa iyaga daali lahaa. waa la ogsoon yahay taas. waxaa jirta oo kale arrinta xiisaha waxay tahay waxa la yiraahdaa koobka adduunka wadanka reeba Argentina ayaa inta badan qaada. labadan xul ee hadda isku soo haray finalka ciyaarta kaba dambayska Faransiiska iyo Croatia labaduba Argentina way ka soo badiyeen. marka macnaheedu wuxuu yaa marka koobka qaadi doona. marka Argentina oo aad ogtahay Aguero iyo Di Maria iyo Messi oo laacibka adduunka ah inay inta kaga soo gudbaan ayaa waxay runtii wax aad iyo aad u adag. laakiin Ingiriisku waxay leeyihiin wayna ku qanacsanahay intaan. arrinta xiisaha waxay ahayd in sidoo kale guddiga u qaabilsan ciyaaraha wadanka liirada FA inay sheegeen inaan ciyaartooydaas loo samayn doonin in basas lagu soo dhaweeyo. marka macnaheedu waxa weeye in xalay fursad badan ay iska dhumayaan. markaad fiiriso xagga daawashada waxaa la sheegaa inay ahayd tani daawashadii ugu badnayd oo 26 milyan iyo 500 oo kun oo qof ayaa Cabdinuur fiirsatay wadanka Ingiriiska telefishinada marka laga hadlayo.
hadlayo abid waxaa ugu badnayd geeridii princess diana 1997 32 milyan oo qof ayaa fiirsatay ciyaaraha olombikada markii la furay 2012 27 milyan iyo 300 oo kun oo qof ayaa fiirsatay arooskii prince william oo ayeeyo u tahay boqorada waddanka UK iyo gabadha la Kate Middleton ee 2012 ayaa waxaa fiirsatay sidoo kale 26 milyan iyo 600 oo kun isku soo duub xulka qaranka ingiriiska waxaad moodaa in inta badan la isku diyaarinayo markan ay leeyihiin waan ogeyn waxaa jirta arrin caan noqotay oo ahayd kubaddii imaanaya koobkii imaanaya laakiin hadda waxaa jirta arrin kaloo la isku dhaleecaynayo oo leeyahay wiilashiiba imaanaya waayahay arrinta kaloo xiisaha leh waxay tahay cabdinuur xagga ciyaaraha markaynu fiirino kooxda waddanka talyaaniga Juventus waxay soo iibsatay Cristiano Ronaldo laakiin kooxdaasi ninka iskale warshad uu leeyahay oo baabuurta sameysay oo la Fiat Chrysler shaqaalihii ayaa shaqo joojin sameyn doona 24 oo waxay leeyihiin annaga ayaa ka mudnin lacagta in la geliyo inta hal qof la soo gadan lahaa aad iyo aad baad mawlid u mahadsan tahay caawa muusiga iyo salaamaha hayloobinina idaacaddii galabtana intaasaan ku soo gabagabaynaynaa anigii iyo mawlid iyo saalimiinba waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin nabaday